is-aqbal adiga oo guusha isku diyaari waad dhalatay waxaa ku dhalay hooyo iyo aabba fiican waxaa timid adduunkan isagoo kugu faraxsan balse aanad adigu rabin oo aad ka ooynayso adduunkuna wuu ku rabay sababtoo ah bashar cusub ayaa ku soo siyaaday aad ayuuna kuugu farxay oo rajo ayuu kuu muujiyey iyo inaad wax ku soo siyaadiso balse adigu maanad rabin oo waad ka oynaysay sababtoo ah allaha qaaliqa ah ayaa kugu abuuray meel nolosheedu dhammaystiran tahay oo aan qabow iyo kuleyl toona ahayn halkaasi oo ah caloosha hooyada dhexdeeda kadib markii aad dhalatay waxaa timid meel aadan horay u arag oo cimilotaadii hore ka duwan ay ka jirto taasina waa sababtaad uga oyday waayo ma aadan garanaynin waxa dhacaya iyo waxa dhici raba ma aadan ogeyn waxa ay noloshu tahay ma aadan ogeyn xitaa waxa aad adigu tahay balse waxaa dhacay aqbalaad aad aqbashay adduunka xoogaa kadib waad aamustay oo kama aadan ooyin markaad aqbashay kadib adduunka waa lagaaga hambaliyeeyey oo waa laguu farxay